kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta shiina oo aan kusoo gudbino warbixinada dunida iyo xogaha qarsoon ee Soomaalida. Warbixintana waxaan kusoo gudbin doonaa macluumaad badan oo aan kusoo gudbin doono muxuusalka ku haya khilaafka madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka Puntland dowladda federaalka ee Soomaaliya oo qorshe culus u degtay. Axmed Karaash oo taageeray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sida dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhinac kale u rogtay qorshihii khilaafka ee dani uu ku khilaafsanaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo macluumaad badan ayaad kaga bogan doontaan iyadoo ay sii xoogaysanayeen khilaafka ka dhex taagan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweynaha ku-xigeenka Axmed Karaash. waxaa soo baxaya xogta khilaafkooda inuu ka wan yahay inta la arko. dad ku sugan Garowe ayaa muujinaya qaylo dhan baraha bulshada Puntland, waxayna dadka intooda badan ay muujinayaan eedeynta in ay u jeedinayaan madaxweynaha Puntland oo doonayo inuu awood ku muqooniyo madaxweynaha ku-xigeenka isla markaana siyaasadda guud ahaan isagu gacanta ku dhigo. Puntland ayaa waxaa ka dhex jira guux ah in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sal ku leedahay khilaafkan xoogan ee ka dhex jira madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka, isagoo oo madaxweynaha ku-xigeenka si aad ah u diidan yahay siyaasadda Puntland ee kula dagaalameysa dowladda dhexe ee Soomaaliya tan iyo markii la doortay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Axmed Karaash ayaa la sheegay in uu salugsan yahay isla markaasina uu doonayo in dowladda federaalka Soomaaliya wada hadal lagu dhameeyo khilaafka ka dhex jira. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u aragtay Deni in uu dagaal xoogan kula jiro laga soo bilaabo xilligii la doortay, iyadoo aysan jirin cabasho sax ah, laakiin Puntland ay doonayso inay difaacdo siyaasadda Jubbaland taas oo ka baxsan awoodda Puntland siday qabtaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Puntland ayaa la sheegay in ay ka talowday siyaasadda Puntland iyadoo oo u talowday Jubbaland kana dulbooday Galmudug oo xad la wadaagta, arrintaas oo dad badan u arkaan arrin qabiilaysan. khilaafka ugu dambeeyay ee la xusuusto Puntland waxa uu ahaa xilligii doorashada oo khilaaf soo kala dhex galay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii Cabdixakiin Xaaji Cumar Cami, waxaana isla xilligaasi isku khilaafeen siyaasadda Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Puntland loo arkay in siyaasad isku mid ah ay ku socotay 10 sano. khilaaf joogtada ah ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku haysay laga soo bilaabo Faroole, Gaas iyo waliba Deni. taageerada dowladda federaalka ee Soomaaliya ku taageertay Cami iyo xiriirkii ayaa aad u cadaaday markii ay si lama filaan ah ugu safray magaalada Muqdisho Cami, iyadoo kadib Cami loo magacaabay safiirka Soomaaliya ee Itoobiya oo hadda yahay. waxaase arrintaas sii cadeeyay in hadda siyaasiyiinta mucaaradka Puntland ay ku eedeynayaan in Deni uu gacanta ugu jiro koox la yiraahdo Aranjan, kooxdani oo muddo dheer Puntland ka jirtay fadhigoodu yahay magaalada Garowe. dadka falanqeeyay arrinta waxay ku eedeynayaan in siyaasadda dejiye uu ka yahay kooxdaasi madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole, haddana lagu xamanayo in aad isugu dhow yihiin madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Faroole oo senator ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee madaxweynaha ka yahay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre. inkasta oo ay Puntland sheegto in ay tahay hooyadii federaalka ee Soomaaliya iyadoo ugu horeysay dowlad goboleedyada dalka ka jira, haddana Puntland waxa ay 10 sanadood ugu dambeeyay khilaaf joogto ah ay kala dhaxeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo weligeed 5 bilood oo isxiga aysan toos u wada shaqeyn dowladda federaalka ee Soomaaliya. dad badan ayaa qaba maxay tahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciyaarta iyo qorshaha hadda ay ka wado khilaafkan. dowladda federaalka Soomaaliya tuhunka Puntland ay ka qabto ayaa salka ku haya sida lagu soo arkay intii xukunka ay haysay, gaar ahaan maamul goboleedyada madaxdooda ee ka soo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliya oo mar kaliya ay u rugtay dowladda federaalka Soomaaliya in madaxweynaha ku-xigeenka uu ka hor yimaado madaxweynaha kadibna khilaaf horseedo in dowladda ay maamul goboleedkaasi ay dib u samayso. Galmudug ayaa lagu xasuustaa madaxweynihii hore ee Galmudug Xaaf iyo ku-xigeenkiisii iyo gudoomiyihii baarlamaanka oo si isdaba joog ah isu qabqabsaday. khilaafkaasi waxa uu sababay in Xaaf awoodiisii uu ku waayo iyada oo baarlamaanka taageersan dowladda federaalka Soomaaliya ay xilka ka qaadeen. sidoo kale Jubbaland ayaa lagu xasuustaa madaxweyne ku-xigeen la safan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Hirshabelle ayaa sidan oo kale madaxweynaheedii oo ka hor yimid dowladda waxa uu sababsaday in sabab uu noqdo baarlamaanka oo xilka ka qaaday kuwaas oo taageersanaa dowladda federaalka ee Soomaaliya. arrinta khilaafka labada hogaamiye ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxaa si toos ah u dhex galay odayaasha iyo isimada Puntland oo inta badan la dhawr oo ah xalinta muranka Puntland ka dhex qarxa. Puntland ayaa taariikh hore lagu xasuustaa isku dhac ay ka mid yihiin Allaha u naxariistay madaxweynihii hore
Puntland iyo Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdi Muuse taasi oo ismada ay isugu keeneen miiska wada hadalka isagoo oo ismada heshiiskaasi ay ka shaqeeyeen laakiin dhibaatada Puntland hadda ka jirta ayaa in muddada siyaasadda Puntland ay jirtay aysan waxba ka siin siyaasadda oo ay ka marorsadeen talada ismada iyagoo ismada oo arka in siyaasadda laga qayb geliyo markay xun tahay oo kaliya Puntland dadka adorseeya siyaasadda khilaafka Puntland ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee halkii ugu sareeyay maraya ayaa ku sababeynaya in sabab ay u tahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya oo doorashada federaalku ay soo dhowdahay oo aragto Saciid Cabdullaahi Deni inuu si weyn uga biyadeysan yahay isla markaana uu ka hor yimid dhamaanba doorashooyinka in la qabto qaabka ay dawladda federaalka ee Soomaaliya u dejisay sidaas daraadeed dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa u degaysa qorshe ah inay ku kiciso isla markaasina madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ay ku qasabto in dawladda federaalka ee Soomaaliya uu dib u hadal ula furo maadaama xilligani uu liiqliiqanayo kursigiisa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa dad badan u arkaan inuu xiisad abuuri karo waxaana lagu xasuustaa in Puntland uu ku yimi markii isagoo madaxweyne ka ah maamulka Khaatumo oo ciidankiisa ula galay Puntland waxaana hadda toos ciidanka u ilaaliya ay yihiin kuwa isaga gaar u ah isagoo oo haysta hub badan oo beeshiisu ay gaar u leeyihiin oo xilligaas uu ula galay Puntland isla shalay ayaa gobolka Sool uu ka soo jeedo waxa odayaasha iyo waxgaradka ay sheegeen inaysan taageersanayn Puntland iyadoo gobolka Sool 10 sanadood ka badan inta badan ay gacanta ku hayso Somaliland iyadoo sidoo kalena ay Puntland u aragto in qalalaasan siyaasadeed ay ka faa'iideysanayso isla Somaliland warbaahinta ayaa waxa ay sheegayaan in saraakiisha ciidamada Somaliland ay tibaaxayaan in Somaliland ay qorsheynayso duulaan ka dhanaa Puntland kuwaas oo ay doonayso in ay ka qabato deegaano ka tirsan gobolka Sanaag deegaanada Somaliland kiiskiisanayso in ay la wareegto ayaa wax ka mid ah deegaanada Fadhiyaale Qodqabe iyo waliba deegaano ka tirsan gobolka Sool kuwaas oo hore ay ku sugnaayeen ciidamo badan oo ka soo jeeda gobolka Sool hase yeeshee haatan qayb ka ah xiisadani ka dhex dhalatay Deni iyo waliba Axmed Karaash iyadoo Axmed Karaash uu ka soo jeedo gobolka Sool arintani ayaa timid markii ciidamada ku sugnaa deegaanadaasi ay u jahaysteen dhanka duleedka Garowe kuwaas oo ay kula safarayaan madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash iyagoo ay Somaliland u aragto haatan in fursad weyn ay u tahay deegaanadaasi in ay ku soo jeedaan Somaliland iyo Puntland ayaa iyagana ku kala faa'iideysta xilliga khilaafaadka u dhex maro deegaanadaas Puntland ayaa kalsii horeeyay waxay kaga faa'iideysanaysay Somaliland deegaanada ay gacanta ku haysay gobolka Sanaag kadib markii eedeyn ka soo baxday taliyaha ciidamada Somaliland uu sheegay hadal uu ku yiri in ay ka daba tagaan dadka deegaanadaasi kuwii hore u aaday Puntland isla markaasina aysan waxba ugu tiirsanayn Somaliland arrintaas ayaa keentay qayladhaan badan oo ka soo baxay deegaanka iyadoo oona ay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Somaliland ay ku biireen dhanka Puntland si kasta ha ahaatee khilaafkan ka dhex jira madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha Puntland ayaa ah mid aad uga xoog badan marka la fiiriyo dhammaanba maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira iyo waliba kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya ay qorshayaasha ku abaabushay ay ku afkambiday dhanka kale qaabka shacabka deegaanada Puntland ay u taageersan yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa lagu qiimeyn karaa khilaafaadkooda kadib markii uu soo ifbaxay ee laga mamnuucay warbaahinta Puntland iyo sidoo kale social media ay adeegsadaan madaxtooyada Puntland ayaa waxa dadku si weyn uga biyadiideen arintaasi waxayna sababtay in muddo ka yar 24 saac uu madaxweyne ku-xigeenku ku dhawaaqo warbaahin gaar ah oo Facebook ah taas oo ku faafiyo wararkiisa waxaana wax ka yar 24 saac ay ku gaadhay in ka badan 40,000 taasi oo sababtay xamaasad ay ka qaadeen dadka Puntland in madaxweyne ku-xigeenka laga mamnuuco warbaahinta Puntland in ay ugu hiiliyaan page-ka uu furtay ugu gaadho wax ka yar 24 saac 40,000 kaasi oo ka dulmaray page-ka laga saaray tacsida uu dirayay madaxweyne ku-xigeenka Puntland